السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كسر هذا channel كنا منى صومة ولا شيء منى ما إن شاء الله وحنج على سينان إذا لبذا وفرد ما يسترن وحن كرنينا بريس هليب ديكسي ير أيان استعماليا مركا هليب كأيان ربا إن أنكو كريو مرقبسن إن شاء الله وحن استعمالي تونا مسيرتا أيان استعمالي تونا markaad hilibkii iyo basashii iyo filfil iyo waxaan kusoo shubay basal iyo wax yar oo cusbo ah intaasi ayaan dabka isla saarayaa biyahaasi ayaan rabaa hadhow insha Allah hadda marka waan ku shidayaa waxaan ku shidaa adiga ilaa 50 daqiiqo si fiican ma sha Allah markii uu huuro biyo fiican ayuu hadhow dhalayaa kadib ayaan rabaa insha Allah dib inaan u sii shiilo marka bariiska ayaan diyaarsanaynaa isla digsiga leh waayay hilibkii ayaan kasoo gidiyay marka digsigan ma sha Allah aad ayaa uga helay aniga dhowr sano ayuu hadda ii yaalaa wax walba waa ku shubaa waa ka tagaa waxa waa asiga ayaa iskarinaya marka hilibkii waan kasoo bixiyay waan soo raacsiiyay waxa waa bariiska ayaa hadda ku dalcanaynaa bariiska markaan ku dalaco waan isku daboolaa haddana hilibkii ayaan insha Allah u laaban doonaa oo birtaawada ayaa rabaa wax yar inaan kusoo huuriyo oo aan kusoo kariyo marka hadana waa kana bariiska ma sha Allah 10 daqiiqo ayuu igu kariyaa waqti dheer ma qaadanayo hore ayaan biyo ula soo dhigaa hadana waxaan u soo laabanaynaa xagga iyo birtaawada hilibkii ayaa rabaa insha Allah in aan huuriyo waxaan isticmaalayaa waxa waa dhowr xabo toon waxaan isticmaali doonaa marka wax yar oo soya chili sauce iyo waxaan isticmaali doonaa iyo wax yar oo kajab ayaan isticmaali doonaa marka toontii wax yar markaan gaduudiyo hadda ayaan ku darayaa chili sauce-kii iyo kajab iyo wax yar oo soya iyo xawaaji ayaan ku dari doonaa insha Allah inta marka waan biyeynayaa markaan biyeeyo hilibka ayaan dhex dhigaa waan ku huurinayaa ilaa uu ka gursanayo inaba caadi maaha lagama sheekeyn karo sidaan ayaan jeclaa hilibka inaan u huuriyo jileecna wuu noqonaa wax yar oo biyo ayaan ku daray wax yar markuu ii soo korkarnay hilibkii oo awal aan soo kariyay ayaan dhex dhigi doonaa waan u dabooleynaa ma sha Allah ilaa uu ka gursado oo dhexda si fiican uga galo lama hadleyno marka asxaabta soo dhawaada asxaabta nagu cusub gacmo furan iyo niyad saafi ku soo dhawaada ayaan idin leeyahay channelkan waa channelkiina like iyo share iyo subscribe iyo comment insha Allah waa xagiina hanagala tagin marka waa kana waa u daboolaa markaan u daboolo markuu gursado sidaan ayuu ku soo baxayaa marka waxaan ku xarfinayaa wax yar barbarooni iyo wax yar basal ayaan isticmaalayaa hilibka ma sha Allah wuu kala daadanayaa si tartiib ayaan u gidinayay haddana waxaan imaanay xagii macmacaanka ayaa rabaa insha Allah inaan sameeyo macmacaan oo very easy ah qabow oo ramadaanka kadib aad ii sheeg afurka kadib aan dhahay aad ku qabooji kartid insha Allah macmacaan zaaidna ma ahan buskudkaas kaliya ayaa kiinugu ah dheeraad inta kale waxa waa taqaaniin u maleynaa malab ayaan isticmaali doonaa sokor ma isticmaalaa insha Allah laakiin buskudka ayaa ku soo jijibinaynaa fruutada rabtidna ayaad saaran kartaa bila fruuto haddii aad rabtid waa cuni kartaa qof walba idooqiisa laakiin fruutiyada ayaa rabaa inaan dusha hadhow uga sharaxo marka intaan buskud ayaan soo jijibinayaa markaan soo jijibiyo waa kan hadda waan idin tusay waxaan isticmaali doonaa creamka loogu talagalay keegaga iyo waxaan isticmaali doonaa creamkani kalo cheese camal ayuu usoo dhadhamaa creamkani ma sha Allah aad iyo aad u carfaa wax dhadhan ma lahan sidaas darteed asiga iyo malab ayaan isku qasi doonaa si uu macaan oo igu wax yar macaan oo igu noqdo hadaa rabtid sokor waad isticmaali kartaa sokorta ayaan diiday aniga markaas iyo malab ayaan isku soo qasaa markaas si fiican aan isku soo qaso ayaan waxaan ku dari doonaa whipping cream ama vispegrade ama creamka cad oo keega loogu talagalay ayaan ku qasi doonaa ma sha Allah fluffy ayuu noqonayaa hadda waa kana wax yar waxaan ku dareynaa marka gradadani ama creamka loogu talagalay keega whipping cream sida u taqaanaanba ayaan wax yar ku soo darayaa haddana waa isku qaseynaa maadaama caanahani uu u baahan yahay in la qaso si fiican ayaa marka isku dhex gelinayaa waxaa la rabaa cream yar oo saan inuu kugu soo baxo aadna uma adka aadna uma jilca koobkii koowaad markaan diyaarinayay waxa waaye si degdeg ayaan u diyaarinayay waan hilmaamay markaa sameynaysid waxaa fiican in aad ii sheeg baxo kala inaad isticmaashid haddii kala koobkii wixii ayuu kaa haleynaa
marka hadda buskudkii aan soo tunnay ayaa wax yar hoosta uga shubayaa. dabaqyo hadaa rabtid waad ka dhigi kartaa, nashqado badan ayaa jiro loo sameyn karo, laakiin buskud badan aniga ma rabin. marka qaybta hoose kaliya iyo wax yar oo hadhow kor decoration ahaan ayaan isticmaali doonaa haddii aad rabtid, laakiin dabaqeen ayaa ka dhigi kartaa. dabaqeen waxaan ka wadaa wax yar buskud, wax yar kariim, wax yar buskud, wax yar kariim ayaad ka dhigi kartaa. marka hadda waa kana waa ujeedeen qaandadan ayaan isticmaalayay. waxaa waaye dhaladii qurxaneed dhan ayuu iga haleynaa. marka waxaa fiican inaad isticmaashiin bac. markii aan kusoo shubay kadib ayaan dareemay wax inay qaldan yihiin, kadib bacdii ayaan kusoo diyaarsaday. waxaa waaye marmarka qaarkiis orod markaa wax ku diyaarinaysid waxaa waaye maskaxdii way maqan tahay. marka hadda waa kana bac ayaan kusoo shubay. koobka ma rabi yani inuu iga halaabo ama يعني إيش كريم كمال والبقوق وحلابه، ساس درت الأيام بعد وصو شوي كوبكي كوبد وجدين قالت كأن سميه. مركا كريم كأي عندك صو شوا كريم مركا كله كصو شوا وحير وبسكوت أي ديكوريشن كركة وصارة كده من الفروت أي صارة مع معانك أنت سأيوك كوبيا ما شاء الله هو very easy. معانك سنة لغا مشاكين كرو معان زائد نما أهن إيش أو ملاب ير أيام كتري ملاب كحيتها معنا كبدينين، لكن معان أو ميل دير وما شاء الله ردم في على هواي. كريم كاسني ما شاء الله أدي وفي عيني هاي تجابي يعني إذا لا هاي وكان هذا بسكوت كي أيا وحير تشا وبالبليا بسكوت بدن من ربي. هذا نوع كان فروت دي أيام صارنا وحن استعمالها ستروبري بلوبري أيام استعمالها. laba koobna waxaan ka dhigayaa strawberry, laba koobna waxaan ka dhigayaa blueberry. fruutada rabtid ayaad isticmaali kartaa, fruuta haddii aad rabin sidiisa ayaad ku cuni kartaan. macmacaankeena hadda waa inoo diyaar insha allah. xilliga afurka markii la gaaro ayaan idin tusin doonaa miiskii afurkeena siduu kusoo baxay. maanta bariis iyo hilib ayay iga haysay, bariis Soomaali iyo hilib. marka afurkeen intaas ayuu ka dhigay. waxaan kaloo jeclaystay in aan idinla wadaago miiska afurka sidaan u diyaariyo. gabar walba si ayay u samaysataa, laakiin anigoo kala ma jecli alaab badan in aan dhaqo afurka kadib. sidaas darteeda afurkeyga aniga gelinka hore ayaan diyaariyaa. gelinka hore markaa diyaariyo jikada mar hore waa iska soo nadiifiyey. afurkii kadib alaab badan iima taalo. waxaan sameeyaa markaa alwaaxani ayaan isticmaalaa. alaabaha afurka inta aan ka isticmaalo ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago oo miiska aan idin tusiyo. weli afur lama gaarin, laakiin alaabtii ayaan soo saaraya si aad u aragtaan. alwaaxa aan dhexda soo dhigay waxa waaye wax walba ayaan saaraa oo afbilaawgii hadduu noqdo sambuus, hadduu noqdo bur, haddii uu noqdo fruutadii wax dhan halkaas ayaan soo saaraa. labada baaquli yar yar waxaan ugu talagalay cadays ama shurbo sida u taqaanaan. 3 koob, midna waa casiir, midna waa biyo, midna waxa waaye qaxwo ayaa lagu cabaa. saxankaas kaloo yariiska oo alwaaxa aan dul saarno waxaan ugu talagalay saladka. labada saxna waxa waaye waa cuntadii caadi ahayd ama cuntadii kululeed sida u taqaanaan. miiska intaan ayaan ku sharaxaa. hadhow markii afurka la gaaro asigoo alaabtii dhan aan soo dhigay ayaan insha Allah idin tusin doonaa. sidaan markaan sameeyay waxay iga caawisaa alaab badan in uusan ii oolin afurka kadib. haddana waa kana afurkii ayaa la gaaray. intii aan idin tusiyay kaliya ayaan isticmaalay. waxaa dheeraad iigu ah 4 koob oo macmacaan kaliya ayaa dheeraad iigu ah. marka waxaan rajeynayaa asxaabta inaad ka hesheen. alaabta sidan ayaa kulli aniga iskaaga yareeyaa oo alwaaxaas ayaa waa ujeedeen badankood yaanan dhihina alaabta dhan alwaaxaas ayaan soo saaray. marka insha Allah asxaabay waxaan rajeynayaa afurkeen inaad ka hesheen. like iyo share iyo comment hanaga hilmaamina waa xaqiina. inta aan haysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hasi inta haysatan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyo. afur wanaagsan ayaan idin leeyahay.